subaxyada ka mid ah taariikhdu ku beegan tahay 21 bishii Juun 2018 magaalada sawaxankeedu badan yahay ee Delhi sidoo kalena ah caasimadda waddanka Hindiya xaafad ka mid ah oo lagu magacaabo Josal Fihar xaafadaas oo ku taala bartamaha magaalada goob dadweynuhu ay ku tuuraan qashinka oo ka mid ah xaafadani ayaa waxaa dhacday subaxyada ka mid ah in uu ka soo baxo ur aad u daran urkaas oo aan ahayn mid horey looga bartay dadkii xaafadana ay aad ula yaabeen halkaasna ay iskugu soo baxeen goobta qashinka waxaa la soo dhigay kartoon aad u weyn iyo weliba bacmadow ag taala kartoonkaas iyo bacdaas ayuu urkan darani ka soo baxayay dadkii xaafadda ayaa ku kala qaybsamay aragtiyadooda qaar ka midana waxay dhahayeen urkani wuxuu ka soo baxayaa kartoonkan qaar ka midana waxay odhanayeen kartoonkan waxaa lagu soo riday qof bini'aadan ah oo la soo dilay ugu dambayn dadkii xaafadda waxay isku afraaceen inay booliska wacaan ayaguna aysan u dhowaanin kartoonkaas iyo bacdaas la soo dhigay halkaas waxaana dhacday ugu dambayn booliskii magaalada Delhi inay goobta imaadaan kartoonkii iyo bacdii ayayna fureen si loo ogaado bal waxa halkaasi ku jira waxaana meeshaas ka soo baxay wax aad u naxdin badan dadkii oo dhanna goobta ay ku kala carareen boolisku waxay ka heleen kartoonkaas iyo bacdaas xubno bini'aadam oo loo soo jarjaray qayb bacmadowda waxaa ku jiray madax iyo gacmo kartoonkana waxaa ku jiray calool iyo lugo sidoo kalena wejigii qofkaasi wuxuu ahaa mid aad loo burburiyey oo aan la aqoonsan karin arrintu waxay noqotay mid naxdinteeda wadata booliskii laftigooda ayaaba argagaxay ugu dambayn baaritaan dheer oo qaatay dhowr bilood ayay booliska waddanka Hindiya iyo kooxaha dambi baarista ee ugu sarreeya waddankaasi ay caddaynta bannaanka u keeni doonaan sidoo kalena ay ogaan doonaan qofkan meesha lagu soo riday dadkii dilay iyo sababtii loo dilayba qisada oo dhammaystiranna waxaan ku ogaan doonaa muuqaalkeenna maantay ee nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalka si aad u ogaato wax walba iyo qaabkii ay u dhaheen inuu mariya sawirwada saaxiibayaal mar kale welcome back muuqaal kale oo xiiso badan waa walaalkii Saki Cabdi Yaasiin fadlan haddii ay tahay markii koobaad oo aad soo booqato waxaan halkan ku soo gudbinaa muuqaalada la xiriira dhacdooyinka iyo qisooyinka kala duwan oo ka dhaca dunida daafaheeda haddii aad tahay dadka xiiseeya muuqaalada noocaasa waad nagu soo biiri kartaa adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ta balse haddii aad horey noola joogtay saaxiib muuqaalka sii laagare sidoo kalena fiidowga sii sheergareeya si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo jecel inay daawadaan muuqaalada noocan oo kale haddaba qisada aan maanta ka warrami doono waxay ahayd qiso xanuunkeeda iyo layaabkeeda wadata waxayna dhacday sanadii 2018 waxayna ka dhacday waddanka Hindiya qaasatan magaalada caasimadda ah oo lagu magacaabo Delhi waxaa dhacday subaxyada ka mid ah xaafad lagu magacaabo Josal Fihar oo ka mid ah magaalada Delhi in lagu arko dhacdo layaab badan dadkii deganaa xaafadan ayaa waxay ku waabariisteen subax aroortii ur aad u daran urkaas oo ka imaanayay goob xaafadda ka mid ahayd oo qashinka lagu tuuro dadkii xaafadda markii ay iskugu soo baxeenna waxay arkeen halkaas in la soo dhigay kartoon aad u weyn iyo weliba bacmadow la soo garab dhigay ugu dambaynna urkii markii uu istaagi waayey waxay waceen booliskiina markii uu yimaaday sidoo kalena kartoonkii uu furay iyo bacdiiba waxaa halkaas laga helay xubno bini'aadam oo la soo jarjaray dadkii xaafadda aad bay u argagaxeen booliskuna dhacdadan oo kale ma aysan ahayn mid ay horey ula kulmeen taariikhdooda xubnihii markii la soo saaray qofkii halkaas lagu soo riday wejigiisu wuxuu ahaa mid aad loo burburiyey oo aan la aqoonsan karin booliskii ugu dambayn waxay soo ogaadeen xubnahani inay yihiin qof haween ah ama dumar ah dadkii xaafadda ayay bilaabeen inay waraysi ka qaadaan sidoo kalena ay tusaan xubnahan ku jiray bacda iyo kartoonka bal haddii ay aqoonsan karaan dadkii qaar ka mid ah
way garan waayeen qofkaani haddii uu ahaa dadka deggan xaafadda. qaar ka mid a dadkiina waxayba diideen inay u soo dhowaadaan maadaama aysan ahayn wax la fiirin karo waxa boolisku ay gacanta ku hayaan. booliskii iyo kooxihii dambi baarista waddanka Hindiya oo lagu magacaabo CBI markaas aad bay u wareersanaayeen, waxayna la'asanaayeen halkii ay wax ka bilaabi lahaayeen, maadaama qofka wejigiisa aan la garanayn, sidoo kalena caddayn kale aysan gacanta ku haynin. waxayna isweydiinayeen markaas su'aalo ay ka mid yihiin maxay ahayd sababtii loo dilay qofkan, yaa ka dambeeyey qofkan dilkiisa, qofkaanina ma wuxuu ahaa qof degan xaafadda mise wuxuu ahaa qof laga keenay magaalo kale oo dilaagu uu rabay booliska iyo dambi baarayaasha in uu jaha wareeriyo. meel ay wax ka bilaabaan ayay garan waayeen, waxayna bilaabeen ugu dambayn inay ku soo laabtaan goobtii ay xubnaha ka heleen. eriyadii oo dhan ayayna xireen, baaritaanno ayayna ku bilaabeen goobtii qashinka. bacmaduuda lagu soo riday madaxa iyo caloosha, sidoo kalena waxaa lagu soo riday dharkii uu qabay qofkaasi markii u dambaysay oo dhiig leh. dharkii ayay boolisku soo qaadeen, waxayna bilaabeen inay ku wareegaan su'aalana ay weydiiyaan dhammaan dukaanadii ku yaalay xaafaddan bal inay aqoonsadaan dharkan qofkii ay ka gadeen. arrintaasna boolisku way ku guulaysan waayeen, wax caddaynana way ku heli waayeen. waxaana dhacday markaas kadib kartoonkii la soo dhigay halkaas inay ka helaan adreeskaasna wuxuu ahaa shirkaddii laga soo qaaday kartoonkan markii u dambaysay. shirkaddaasina waxay ahayd mid ka shaqaysa kaargowga ama dhoofinta alaabaha iyo sidoo kale alaabaha la soo dhoofiyo inay gaarsiiso macaamiisha ku nool waddanka Hindiya. shirkaddaasina waxay ahayd mid lagu magacaabo Courier Company, waxayna ku taallay isla magaaladan Delhi. boolisku markii ay kartoonka ka heleen adreeskan waxay ogaadeen markaan inay heleen wax yar oo caddayna, waxayna tageen shirkaddaas xarunteedii ugu weyneyd, waxayna halkaas kula kulmeen maamulkii sare ee shirkadda. waxayna weydiiyeen kartoonkan haddii ay garanayaan iyo sidoo kale haddii uu jiro macaamiil ay kartoonkan alaab ugu geeyeen. maamulkii shirkadda waxay fureen kumbiyuutaradooda, dhaatadii ayayna dib u raaceen ilaa ay soo ogaadeen adreeskii u dambeeyey iyo qofkii ay kartoonkan u gudbiyeen. waxayna sheegeen kartoonkani 1 sano ka hor inuu ka imaaday waddanka Imaaraadka, khaasatan magaalada Dubai, alaabna lagu keenay. alaabtaasna waxay sheegeen inuu iska lahaa macmiil lagu magacaabo Javed Akhtar, midkaas oo ku nool magaalo lagu magacaabo Aligarh oo ka mid ah gobolka Uttar Pradesh. waxayna siiyeen gurigiisa iyo weliba adreeskiisa oo dhammaystiran booliskii baaritaanka waday. booliskii markii ay xogtaas heleen waxay isdhaheen haddeertaan ayaa dilaaga gacanta ku dhigteen. waxaana dhacday xubno ka mid a dambi baarayaasha iyo booliskii in loo diro guriga uu ku nool yahay ninkaas lagu magacaabo Javed Akhtar iyo gobolka Uttar Pradesh. ugu dambayn waxaa la tegay gurigii uu ku noolaa ninkaasi. nasiib wanaag guriga ayuuba ku sugnaa, booliskiina durbadiiba gacanta ayay ku dhigeen. waxayna bilaabeen markaas boolisku ninkan lagu magacaabo Javed Akhtar inay waraysi ka qaadaan, waxayna durbadiiba tuseen kartoonkii ay ku jireen xubnihii la soo jarjaray. waxaana la weydiiyey haddii uu kartoonkan garanayo. ninkan ayaa ku jawaabay, haa waan garanayaa kartoonkan, aniga ayayna alaab iigu timaaday 1 sano ka hor, waxaana alaab uga keensaday waddanka Imaaraadka Carabta, khaasatan magaalada Dubai. kartoonkan markii alaabtii aan kala baxayna waxaan ku tuuray guri aan ku leeyahay magaalada Delhi, gurigaas oo markii dambe aan ka kireeyey nin dhalinyaro ah oo injineer ah iyo xaaskiisa, ninkaas oo lagu magacaabo Saajid Ali Ansar. kartoonkanna gurigaas ayaa igu dambaysay asagoo yaala, ayuu ninkaani booliska u sheegay. markaas boolisku waxay baareen ninkan, balse waxay arkeen ninkani inuusan waxba ka ogeyn dembigan. waxayna markaas ka codsadeen in uu geeyo gurigaas uu ku leeyahay magaalada Delhi. Javed iyo booliskii oo isla socda ayaa isa soo raacay, waxayna markaan soo aadeen guriga uu degan yahay ninkaas dhalinyarada ah iyo xaaskiisa.
ugu dambayn gurigii ayay imaadeen, balse nasiib xumo gurigu wuxuu ahaa mid xiran, qof joogana ma uusan jirin. muddo saacado ah ayay guriga bannaankiisa taagnaayeen, balse cidina ma imaanin guriga. ilaa markii dambe boolisku ay waraysteen dadkii degganaa xaafadda ayagoo weydiiyey ninkaas iyo xaaskiisa halka ay jiraan. dadkii xaafadda ayaana waxay u sheegeen booliska ninkaasi inuu maalmahan sheegayey gurigan inuu iskaga guuri doono mar dhow, haddeertaanna aysan garanayn halkii ay aadeen asaga iyo xaaskiisa iyo weliba carruurtiisiiba. ninkan guriga ka kireeyey markii uu nambarkiisa wacana, nambarkiisu wuxuu ahaa mid aan la heli karin. boolisku markaan waxay iska fasaxeen ninkan lagu magacaabo jeefid akhtaar, waxayna bilaabeen inay raadiyaan ninkaas lagu magacaabo saajiid cali ansaar. dhowr maalmood markii ay raadinayeen, ugu dambayn waxay soo heleen xogtiisa oo dhammaystiran, waxayna ogaadeen markaas inuu joogo guriga walaalkiisa ka weyn, kaas oo lagu magacaabo xamsa cali. ka hor inta aysan tegin boolisku gurigaas, waxay ogaadeen ninkan lagu magacaabo saajid cali iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo juhi iyo 2 carruur ah oo ay u dhashay in ay ku noolaayeen gurigaas ay ka guureen. gurigii walaalkiisa ayay ugu dambayn ugu tageen asaga iyo walaalkiisba. markaas ayay boolisku waxay bilaabeen inay waraysi ka qaadaan, waxayna weydiiyeen haddii uu wax ka og yahay kiiskan boolisku ay baarayaan, balse asaga iyo walaalkiisba waxay sheegeen kiiskan inaysan waxba ka ogeen. booliskii ayaa si lama filaan ah waxay u tuseen kartoonkii ay ka soo heleen goobta qashinqubka. ninkan lagu magacaabo saajid ayaa durbadiiba dhididay, aad ayuuna u naxay, wuxuuna bilaabay in uu qalqalo, hadallada qaarna uu kontarooli waayo. booliskuna waxay u sheegeen haddii uu runta sheego wax walba inay hagaagi doonaan. ninkan ayaa ugu dambayn booliskii wuxuu u sheegay wax walba iyo sidii ay u dhaheen, wuxuuna booliska u sheegay xubnahaas jarjaran oo ay ka heleen kartoonka dhexdiisa iyo baxmadowda in ay yihiin xubnihii xaaskiisa oo welibana u dhashay 2 wiil laguna magacaabo juhi. wuxuuna sheegay asaga iyo walaalihiisba in ay ka dambeeyeen ayada dilkeeda. booliskii markii ay weydiiyeen maxay ahayd sababtii aad u dishay, sidee ayuuna dilku u dhacay, wuxuu sheekada u dhigay sida tan. ninkan ayaa yidhi aniga iyo gabadhan lagu magacaabo juhi waxaan qadka taleefanka iska barannay sannaddii 2014. muddo ayaana xiriir lahayn, markaasna waxaan ku noolayn gobolka bihaar, magaalo ka mid ah. muddo markii aan xiriir lahayn ayaan ugu dambayn waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursanno. wuxuu sheegay gabadhaani inay ka soo jeeday qoys hinduu ah, asaguna uu ka soo jeeday qoys muslim ah. waxaana dhacday caqabad inay dhexdooda timaado. ayada faamilkeedana waxay diideen gabadhan guurkeeda iyo in uu ninkaani guursado. wuxuuna sheegay inay uga soo gooday faamilkeeda, welibana ay ku madax adeegtay ayagoo ka soo horjeeda guurka, sidaasna ay isku guursadeen asaga iyo gabadhaas lagu magacaabo juhi. wuxuuna sheegay xilligaasi asagu in uusan waxba haynin, balse uu ahaa nin xilligaas jaamacad ka soo qalanjabiyey oo injineer ah. wuxuuna sheegay xaaladdii dhaqaale in ay ku adkaatay markii ay isguursadeen asaga iyo gabadhaas. ugu dambaynna ay ka soo guureen gobolkii ay degganaayeen, soona degeen magaalada delhi ee caasimadda waddanka Hindiya si ay halkaas uga raadiyaan fursad kale oo noloshooda ay ku ambaqaadi karaan. wuxuuna sheegay markii aan halkaan nimaanay anigu waxaan helay shaqooyin iska gaagaaban oo aan wax nacfiya laga helaynin. xaaskayguna markaas waxay ii haysay 2 carruur ah. waxaana dhacday ayuu yidhi dhaqaale xumadii inay sii siyaado, aniga iyo xaaskaygana muran joogto ah iyo dagaal uuna dhex maro. ayaduna waxay igu dhiirigelinaysay in aan xaaladda guriga wax ka bedelo, maadaama markaan carruur ay noo joogeen. aniguna awooddaydu intaas ayay ahayd, ayuu booliska u sheegay. waxay arrintu sidaas ahaataba waxaan isbarannay ayuu yidhi haweeney kale oo ku noolayd magaaladan delhi. haweeneydaas oo ka soo jeeday qoys ladan. waxaana u arkay ayuu yidhi haweeneydaas haddii aan guursado dhaqaale xumada in aan ka bixi doono. haweeneydaas
ayaana markii dambe haasaawo la bilaabay ilaa markii dambe xaaskaygu ay ogaatay in haweenaydaas ay wax naga dhexeeyaan dagaalkii noo dhexeeyey labadeennana uu aad u siyaado ilaa markii dambe gacanka hadal ay gaarto waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey go'aan ku gaaray ayuu yidhi haddii aan rabo in aan dhaqaale xumada ka baxo haweenaydaasna aan guursado xaaskaygu in ay meesha ka baxdo sababta keliya oo ay uga bixi karto noloshaydana waxay ii soo baxday ayuu yidhi in ayada aan dilo oo adduunyada aan ka safriyo arrintaasna waxaan kala tashtay ayuu yidhi laba ka mida walaalahayga iga waaweyn oo lagu kala magacaabo xamsaad cali iyo maxamed ishtiyaaq waxayna igu wada raaceen go'aankayga waxaana markaas bilaabay ayuu yidhi qorshihii aan ku dili lahaa xaaskayga maalin maalmaha ka mid ah ayaana suuqa ka soo gatay midi aad u weyn isla maalintaasna labadayda carruur waxaan geeyey ayuu yidhi guriga walaalkayga iga weyn xaaskaygana waxaan u sheegay in aan kala hadli doono arrin muhiim ah buuqana carruurta aan ka dheeraynaayo balse ayadu ma ogeyn waxa sugaayo iyo qorshaha aan u damacsanahay waxaana sugaayay ayuu yidhi ilaa inta ay ka gaarayso habeen madow xilligii habeenkii markii la gaarayna waxaan u imaaday ayuu yidhi xaaskayga oo keligeeda guriga joogta waxaana bilaabay ayuu yidhi inaan ku idhaahdo hadallo ay ka xanaaqayso ugu dambaynna waxaa dhacday ayuu yidhi gacanka hadal inaan ula tago anigoo qoorteeda ku qabtay gacantayda ceejina ku dilay xaaskayga neeftana sidaas ugu xidhay markii ay sidaas ku dhimatayna waxaan u wacay labadayda walaalaha ah gurigii markii ay ugu imaadeenna waxaan ka tashannay qaabkii aan u qarin lahayn xaaskayga meydkeeda waxaana go'aan ku gaarnay in aan cadcad u jarno kadibna kartoonkaas aan ku ridno xubnaheeda iyo bacmadowdaas haweenow madowna aan meel cidla ah ku soo tuurno sidii ayaana samaynay oo xubnaheedii ayaan cadcad u jarnay kartoonkaas iyo bacdaas ayaana ku kala ridnay walaalkayga iga weyn ayaana wuxuu ii keenay ayuu yidhi baabuur aan ku qaado xubnaheedaas kadibna aan ugu soo tuuro meel ka mida magaaladan sidaasna aan meydkeeda ku qarinno baabuurkii ayaana ku soo qaaday habeenow madow kartoonkan iyo weliba bacdan oo ay ku jiraan xubnaha xaaskaygii waxaana ku soo tuuray goobtaas qashinka ah oo aan u arkay meel ku habboon in aan ku qarin karo xubnaheeda qof bini'aadanana uusan ka filanaynin halkaas inay yaallaan xubno qof la soo dilay sidaas ayaana isla habeenkiiba gurigayga ugu soo laabtay aniga iyo walaalahayna waxaan nadiifinay gurigii kadibna gurigii ayaan sidaas uga guuray walaalahayga ayaana la joogay muddooyinkan oo dhan haweenaydii kalena waan isku dhacnay markii xaaskayga aan dilay kadib waxaana u sheegay qorshahayga waxayna iga baxday dhammaan ballamihii maadaama ay ogaatay xaaskayga anigu inaan dilay ayadana berri ka maalin aan sidaasoo kale u dili karo ninkan markii uu wax walba afkiisa ka qirtay waxaa dhacday asaga iyo labada walaalihiis ahba in la soo xiro xabsigana lagu tuuro ugu dambaynna maxkamad ayaa la soo saaray waxayna bilaabeen inay raxfaan ka qaataan ilaa iyo maantayna waxaa socoto maxkamadayntooda caddaymahooduna way ku cad yihiin balse maxkamadda ayaa waxay go'aan ku gaartay in dib loo dhiga kiiskooda inta badanna warbaahintu waxay sheegtay ninkan in lagu xukumi doono dil toogasho ah walaalihiisna lagu xukumi doono xabsi daa'in balse weli maxkamaddu go'aankeeda kuma aysan dhawaaqin dadkanna ilaa iyo maantay xabsiga ayay ku jiraan waxaana ka soo wareegatay gabadhaas dilkeeda ugu yaraan 6 sano dadkanna weli lama xukumin gabadhii uga soo go'day qoyskeeda si asaga ay ula noolaato ninkan ugu dambayn qaabka noocaasa ayuu u qaarajiyey kiiskanna weli dowladda Hindiya ma aysan soo afjarin muuqaalkii aan uga hadlaynay qisadanna halkaas ayaan ku soo afjari doonaa haddaba haddii aad soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa su'aasha aan ku weydiinayo ayaa waxay tahay adigu haddii aad ahaan lahayd garsooraha maxkamadda fadhiya ninkan iyo walaalihiisa maxaad ku xukumi lahayd
ma dil toogasho ah ayaad ku xukumi lahayd mise xabsi daa'in? fariintaada qaybta hoose ee faallada noogu soo qor. muuqaalka sii laagaree, sidoo kalena fiidiyowga sii shaargareeya. ugu dambayn waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin oo idin leh muuqaalka ku xiga ayaa inoo ballana.